kulan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu waaweyn ee Soomaalida haddii aynu ku bilowno axsaabta siyaasadeed ee mucaaradka Somaliland ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha maamulka Somaliland uu ogolaado in doorasho uu galo isla markaana uu joojiyo wax walba oo lid ku ah in doorasho ay ka dhacdo Somaliland. Faisal Ali Waraabe gudoomiyaha xisbiga UCUD ee mucaaradka Somaliland ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dhibaatooyin kala duwan uu soo maray deegaanada Somaliland isla markaana tani ay tahay ugu adkeyd ee ebed soo marta. Waxa uu tilmaamay in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi laga rabo in sidoo ugu dhaqsiyaha badan uu kaga jawaabo cabashada bulshada iyo sidoo kale siyaasiyiinta isla markaana uu raaligelin buuxa ka bixiyo waxyaabihii dhacay ee Khamiistii la soo dhaafay taas oo uu sheegay in mas'uuliyadeeda isaga uu qaadayo. waxa laga mudaaharay wax la sheego saddex magaalo waaweyn dad ku dhinteen gar adag Ceelafweyn Laascaanood Berbera Boorame inta walaga mudaaharay halkaas waxa ku tusaysaa inaan ninkan taqad haysan isna wixii yiri boqoshaas soo bixin waa lagu yaqaanaa dictatorska inay ka tagto runtu oo been fantasy ustuso waxa weeye shalayto habeenkii jimcihii Muuse uu khudbadeeyay khudbadiisa waynu arkaynaa waa ninka isagoo maanta 7 qof dilay 100 dheeraadna dhaawactay markaan lagu daran askarta weli uu hamuumaya dhiig iyo dil kale maalintii Maxamed Siyaad Barre lagu mudaharaday dhalinyarada u fal xiray hal qof baa marayna ku dhintay إنكم يدعون هذا هو فقشتي ما أنتنا السجع 6 أمريكا لا حبت لا إن كان هذه لا حبت وهو حلو يري حافظ دا يكون بدين قرى هلاكم متحرر حبنا على الرجل هذا موسى وقد بديسي حسب إسبدلي أو قدومية كدكتي ناس حسب يكون شيء أي مو حس ليلا أي لواش هرا وأنا كل شيء ما كي سدوه هجاك سنة أي ما حس لقى دي جبوين قدومي قدني ما كاسو حد بدل وعن كبقى يا موسى هذول ما تسكرامات كوي مادو هركو كأشهادة لها إنه حرسي نفتك كبح دان كبقى يا سو أبسس لو نقضي وحوي موسى وحنا شيءنا موسى يكون تاجرسن يكون بلا معنى وسيرة اسمودية واحد مدحوينا كون نقطة أدوكم اعتراف سنة ودوكتها إنما اعتراف سنة وحنا كو اعتراف internal اعتراف جدين هاي سنايو مركانو كو اعتراف أنا كو قراني عندنا تدلك كأجاني دي وهلاي أنا كوير هذا نقطة هذا ما أنت نلا متين مدحويني مدحويني من نقول سوى حمص موسى نقول دونتا كو مودية إنه كودي مدحويني هنا مدحوين نقول يوح مدحوين كوي كلسوني دي هذا كلام نقولنا أو إيمان السائل كلام نقول إيمان السائل مدحويني لما نقول يصير لك أن شونا ما أنت لقى مظاهرة دولة ده كمان شقين السب دولة كل شيء قاعو عشور تيلا ما بحنيس عشور لا أنا لقى قاس لو كانوا كم مرة لو كانوا دقينا لقى تاجرنا عشور قادم مس هذا الحبد بلودنا كان أول شيء إيمان يا حرقيسة هالكاسين سكوا قوبنا إذا ما أنا هوبك أوجدني أسكرتنا هوبك أوجدني قرية أو يبني أسكر كنكتي يكون فرد كتشوجنا وكلام بحدونا كوا تاجري كوا شيء سريو بالبيكتشر كاي محمد سياد بري أياد دمعين الخيره قبيل كوا هيسة سومالي صدقكم موسميست أو بدن أسكرتي سيدتك أتلاقوا كريعي أسكرت هو كلتجي بوليس هو كلتجي reer bay noqon doonta warjoojiye baan leenahay dadka dalkan lacagta gashaday moolska ka dhistay ee qurux badan kuwa masaajid ka hadliya ee dhistay war hadaynu nabadda ka qaban oo qofka qaldan aynu qaban masaajidu jiri maayeen daaraha dhaadheer jiri maayeen wada muraayati war qabtaan leeyahay war uu qaldan yahay qabto war waxay oran kari wada Muuse inay ka waa qaldantay joog haddaba haddaad anaga tirahay Faisal iyo irma jiraan oo biibtooyin waa kala mid dhigtay adna warlord ma noqonaysa aan ku sheegay
waxay kula tahay intaan anigu aanu xusbiyada baabisada madaxweyne noqon doonto oo lagu wadooyinka Hargeysa lagu xidhi doono lagu xidhi maayo ceebtiyadii sharaftii baad naga qaaday ilaahay sharafta ka qaaday Soomaalidu dhan ixtiraamisay aqli nagu fahmiyay lanagu koomiyay deeqsinimo Soomaalinimo nabadgelyo intii waa naga baabisay cadowgay maanta waxay leeyihiin joojiya waxaan ka doonay Soomaaliya Muuse waxay noo bixinay inoo sameynaya Maxamed Kahine ay maanta leeyihiin hadday halkaa xabadi ka dhacdo ciidankiina uu kala tagi hubka halkaa yeelayaan Somaliland in soddon kala dhisanayna waa la wada qabsan doona waa inaad ka fikirtaan waxaa nagu maqaalo ah inaad leedihiin urur aan jirin oo rejistareyn oo sharciga loo rejistareeyay tooska aan la sameeynin oo shakhsiyaad ah inaad tiraahdo mudaharaad bay doonayaan hadduu mudaharaadka aad sameeysan waxa mudaharaad iyo wax kulmiye kaayigana uu soconaya ogaa uu socdaay waxa iska hor iman doona kulmiye taageerayaashii iyo kuwa iyaga waa iska iman doono dalku wuxuu noqon doonaa fawdu gali doona shacabka istiri doona inaad tiraahdo warqad soo qorta oo noo soo weydiista sharci madaxay ku mudaharaya shahaadada ma haysan ku mudaharada waa kulmiyihii galbinayay ee kiilaa bibitan furanayaba dul fadhiyay ayaa tani madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa shir degdeg ah waxa isugu yeeray saraakiisha ciidanka dawladda kuwa koonfur galbeed ee saraakiil ka socotay howlgalka ADMIS iyo sidoo kale saraakiil ka socotay dawladda UK halkaas oo looga hadlayay wax ka qabashada amniga deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kulanka oo xoog lagu saaray wax ka qabashada iyo sidoo kale sidii iskaashi dhinacyadaasi u yeelan lahaayeen ayaa madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu halkaasi ka sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay sidii wax badan ugu qaban lahaa nabadgelyada maadaama uu sheegay in ay jiraan deegaano badan oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo xilligan kala go'an agaasimaha warfaafinta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa sidan sheegay ay la wadaagto dawladda Itoobiya runtii dhibaato badan ay ka taagnayeen iyo shaqadii socotay iyo isla xisaabtankii amniga ku khuseeyay ayuu maanta madaxweyne Cabdicasiis ugu yeeray dhamaan hay'adaha amniga ee ka shaqeeya deegaanadan dawladda koonfur galbeed oo ugu horeeyo taliyaha qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale taliyaha booliiska gobolka Bay sidoo kale taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed sidoo kale taliyaha CID-da dawladda koonfur galbeed iyo sidoo kale saraakiisha ku sugan ADMIS iyo sidoo kale sector 3 ee ka howlgala deegaanadan koonfur galbeed ee dawladda koonfur galbeed Soomaaliya runtii waxaa shirka lagu falanqeeyay xaaladda guud ee deegaanadan iyo dhacdooyinkii soo noqday iyo howlgallada socda iyo sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka amniga ee lagula dagaalamayo kooxda nabadiidka al-shabaab oo runtii caadeystay daadinta dhiigga islaamka iyo sidoo kale howlgallada socda sidii la iska kaashan lahaa oo runtii meel loogu soo jeesan lahaa loona cirib tiri lahaa deegaanadan dawladda koonfur galbeed ee ka arrimiso runtii waxaa guud ahaan la isla afgartay ciribtirka iyo sidoo kale baabi'inta kooxda haraadiga ah ee ku sugan deegaanadan koonfur galbeed runtii waxaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer koonfur galbeed ee ku sugan tuulooyinka iyo degmooyinka hoos yimaada dawladda koonfur galbeed laga codsanayaa in ay ka qayb qaataan sidii xogaha ay la wadaagi lahaayeen hay'adaha amniga oo runtii hayo shaqo muhiim ah una shaqeynaya bulshada koonfur galbeed iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan bulshada reer koonfur galbeed waxaa laga codsanayaa in ay la shaqeeyaan hay'adaha amniga si loo cirib tiro kooxda nabadiidka al-shabaab waad ogtihiin waxay u baahan yihiin howlgal mideysan in lagu wada sameeyo koonfur galbeed waxay mar walba diyaar u tahay sida loo cirib tiri lahaa kooxda nabadiidka al-shabaab laakiin waxaa loo baahan yahay garabka bulshada oo muhiim ah dhanka kale wuxuu madaxweynaha ahmiyadiisa koowaad uu siinayaa madaxweyne Cabdicasiis Lafdigareen in runtii hay'adaha amniga la xoojiyo lana dhiirigeliyo sidii ay u cirib tiri lahaayeen kooxda nabadiidka al-shabaab si loo helo xasilooni amni isku furista wadooyinka oo runtii abaaraha hadda taagan ay qayb ka tahay sidii la aaminsan yahay amni darada ka jira deegaanada koonfur galbeed marka si looga baxo amni darada waxaa muhiim ah in bulshada iyo hay'adaha amniga ay iska kaashadaan
xaaladda amniga guud ahaan ee deegaanada koonfur galbeed xogaha rasmiga ahna ay la wadaagaan hay-adaha amniga. sidoo kale wuxuu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ah madaxweynaha dowladda koonfur galbeed uu faray saraakiisha qaybahooda kala duwan, ha noqdo kuwa ciidamada xoogga dalka, ha noqdo booliiska, ha noqdo nabad sugidda, admis iyo sector 3 oo ka howlgala deegaanada koonfur galbeed, sida u dhaqsiyaha badan howlgallada socdo oo runtii lagu ciribtirayo kooxda nabadiidka al-shabaab ee ka socda deegaanada koonfur galbeed la dardargeliyo, lana soo ciribtiro meel walba ay ku sugan yihiin kooxda shabaab. guud ahaan wararkii ugu waaweynaa Soomaalida oo aad la socoteen halkan ayuu inooga kooban yahay. wixii nagu soo kordha wararka soo aadan ayaad ku daawan doontaan. waadna ku mahadsantihiin la socodka iyo daawashada wararkayga.